daawadayaasheena sida tooska ah ugu xiran Dajiya TV waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa qaybta labaad ee qisadii aadka cajiibka u ahayd ee jacaylka la xiriirtay ee saddex nafood waxaana ay inoo joogtay waardiyihii isaga oo dhex soconaya guriga habeenkiina waardiye ka haya arkay siraad oo qaaban isla markaana qayb dariishadeeda ku aadan isagoo maraya. qaybta labaad ayaa waxa ay ka bilaabanaysaa habeen adiga oo weyse qaba si aadan quraanka u ilaabin dusha ka akhrinaya oo beerta guriga wareegaya ayaa daaqad furan ka aragtay siraad oo qaawan hadda qawnaan aan dun korkeeda saarnayn muraayad aan adiga ku muuqan ayay hor taagan tahay oo timo yar qoyan shanlaynaysa qacdii hore ee naxdin iyo filan waaba kugu dhacday oo waad carartay haddana si aad fursadda lama helaanta ah uga faa'iideysatid ayaa dib ugu carartay oo si yar daawatay haddana waad ka carartay oo haddana adiga oo run iyo riyo u kala garan ayaad mar kale dib isu rogtay sidaa ayaa adiga oo gariiraya muddo 5 daqiiqo ah ugu noqonaysay ilaa ay dhergashatay oo nalkii damisay waxay ahaayeen 5 daqiiqo oo xagga baqdinta 5 sano ka dheer xagga raaxadana 5 second ka gaaban. habeenkaas malaha foosto biyo ah waad cabtay wixii aad xanuun la kulantayna isma aadan lahayn waad sii noolaanaysaa markaas kadib haddii aad damacdid inaad wax akhridid kitaabka waxaad ka dhex arkaysaa naasihii iyo xuluskii iyo biradii iyo boodiyihii siraad ee qaawnaa maxaana qaawan kitaabka ilaahay dhexgeliyay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim iyo waxyaabo kale ayaad ku meermeeraysataa naag aadan qabin in loo galmoodo waa sino in la daawadana waa sino laakiin in laga fikiraa masina mas'alada xukunkeeda sharciga ah waxa ay madhabta Shaafici ka qabto ma taqaanid sino ayaysa u eg tahay laakiin sidee bay sino ku noqon kartaa fikirka ma adiga xukuma soo wax maskaxda iskii ugu soo dhaca maaha sheekha aad kutubka ka raacatid qodiisa soo dumarka qaawani maskaxdiisa kuma soo dhacaan iyo xitaa isaga oo u galmoonaya ma sheekha dhan ee aad alle ka cabsigiisa og tahay baa isaga oo naaqalaad u galmoonaya ka fikiraya astaghfirullah allow tooba iyo erayo kale ayaad ku rafataa marar badan waxaad ku sigatay inaad gudaha isku qaadid oo siraad iyo adeegtada mid uun beerka kaga degtid albaabka wuu xiran yahay ee waxaad ka fikirtay inaad daaqada neecawsiga loo furayo uga dhacdid shaydaanka iska naartay quraanka akhrisatay tawbad iyo astaghfirullah ayaa daldashay kuma se aasan qawoobin siraad ayaad habaaraysaa oo eersanaysaa waxaad kale oo habaaraysaa wixii nal iftiima sameeyay iyo wixii daaqad furanta hindisay wixii waardiye noqday iyo wixii qolna qaawani ku jirto eegay iyo wixii ka cararay ee haddana dib ugu cararay bal maxaa kugu celiyay maad shaydaanka iska naartid oo quraanka iska sii wadatid ilaah baa risiqa bixiye ee inta aad faqriga ka bixiysid iska guurso haddii aad mid xun meelahaas ka soo jilaaban lahayd oo aad cawshad xun meelahaas uga kirayn lahayd miyaad waxaas oo xanuun ah la kulmi lahayd oo marba naag xun daaqad xun waqti xun si xun ugu qoraarsan lahayd beriba markuu uu waaga bariyo waxa ugu horeeya ee aad qabataa ha noqoto inaad guursatid tii xumeed ee cawshada xun digirta xun ku karin jirtay bal ka waran ha iska fool xumaato ee soo naag uun ma ahan ma ku yeelaysaa baad u malaynaysaa oo maxay kugu diidaysaa malaha weligeedba guur lama soo qaadin marka yaaba adiga ku dhaama laakiin waa qof fool xun inkasta oo sii jeed wanaagsan tahay astaghfirullah maalin walba waxaad camal falatid daawashada barideeda ayay ku qasaaraysaa
jaariyadda xun ee gurigan ka shaqaysa bal iyada ka waran dhowr jeer oo horena waad ka fikirtay laakiin malaha iyadu weligeedba kamaysan fikirin arrinta maskaxdaada ku jirta ma qurux liidato laakiin dabeecadda ayay ka aradan tahay dabeecaddeeda maxaa kaa galay oo waxaad isku dawaysid uun soo uma baahnid maxaa kaa gali waayey soo lama noolaamaysid oo carruur ku dhali mayso waar nolol iyo carruur lahaane naftaadan besteeda ah meel dhig laakiin waxa ay ku dartay in iyaduba aysan hadalka badan jeclayn oo inta badan ay ka gaabsato arrimaha la xiriira in arrimaha jacaylka ay dadka u soo bandhigto waxa ay tahay mid si joogto ah ugu mashquulsan in howl maalmeedkeeda ay qabsato marka gabalka uu dhacana waxa ay aadaa sariirteeda oo waxa ay u hurdaa sida qof shaqo badan soo qabtay isaguna waxa uu socdaa beerta guriga oo wuxuu ka ilaalinayaa toogta waardiyahan oo xaalad xun ku jira waxa haysata laba daran mid dooro siraad oo odaygii uu ku xumaaday xilligii doono uu yimaado xilligii uu doonana aan bacag soo dhigin guriga ayaa waxa uu hami ka galay in uu mar uun ka ag dhawaado isla markaana waxa uu doono ka samaysto haddana waa uu isceliyaa oo wuxuu ku fikiraa haddii siraad uu damco haddii shaqada laga eriyo xaguu shaqo ka heli doonaa jaariyadii guriga joogtay kaba sii darane waa qof aan hadal badnayn haddii cuntada ay u keento lama sii hadashee dhabarka ayay aadisaa oo halkii ay ka timid ayay dib ugu laabataa waardiyahan oo xaaladda ay ku xun tahay ayaa u muuqda in marka ka dambaysa xaaladda ay ku sii culsaanayso islaan yar oo meel wax ku gada ayuu aad uga helay haddana wuxuu isku qancinayaa inaysan u qalmin oo ay foolxun tahay maye ma foolxuma ee soo uma baahnid oo kaliya inaad ilmo ka dhasho ayuu haddana naftiisa ku qancinayaa qaybta labaad ee sheekadeena 3 nafood ayaan halkaas ku soo gabagabeynaynaa daawadayaasheena sida tooska ah oo la socda Dajiye TV waxaan ka codsanaynaa in subscribe ay noo saaraan isla markaana ay asxaabtooda la wadaagaan qisooyinka muhiimka ah ee aan sida joogtada ah idinkugu soo gudbino waad ku mahadsantihiin sida joogtada ah aad ugu xiran tihiin barnaamijyada iyo wararkeena